xildhibaan goodax dadku way weerarsan yihiin aad loo weerarsan yahay jahwareera dhacay sababtoo ah baarlamaankii waxaa la rabay amniga iyo afaarahaas in laga hadlo buuq markiiba feer xitaa mararka qaarkood qash sababta maxay ahayd wakiilo shabaab oo baarlamaanka soo dhex galay sidee al-shabaab baarlamaanka soo dhex galay macnaha maxay rabaan maxay u soo dhex galayaan baarlamaanka shabaabku wuxuu rabay in fawdada baarlamaankan ka dhacdo sidee ugu sahlanaatay al-shabaab inay baarlamaanka soo dhex galaan macnaha askarta ma arkeenin miya askarta maxay u celin waayeen mise afkay soo duubteen dalaq waa soo dhex galeen waxaa u sahlay dad sheeganaya xildhibaano inay yihiin ficilkooduna uu shabaabka u adeego waa arkaysaan meesha waxay ka sameeyeen xildhibaan maalmahan waxaa socotay muuqaalkan photoshop uu ahaa iyo maya video shop oo weli soo bixin lagu sameeyey ani ma ahayn ma dhihin marka warkaaga si fiican dadka ugu cadday bal shacabka u cadday shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo waxaan u sheegaynaa in wajiyada aad maanta meeshan ku aragteen oo baarlamaanka fawdo dhex keenay aad si fiican hadda ummadda Soomaaliyeed u barataan aniga shakhsiyan dadka maanta meeshaas fawdada ka sameeyay ee diiday in baarlamaanka Soomaaliyeed xogaal u noqdo amniga meesha maraayo wax caddayn ah ma haysaa matalan mana dhihi kartaa yaash oo shabaabka ka tirsan oo baarlamaanka ku dhex jiro tusaalena sii bal waa shabaab kana ka mid ah hadda sii socda kewa kaasa ka mid ah la barto kan sii socdaa waa shabaab waa dad shabaabka u shaqeeyo waa dad message inay halka shabaab uga diraan rabaan ay shabaabka yiraahdaan anaa kula jiro waana xaruntii al-shabaab oo qaraxyay oo baarlamaanka hadda ku dhex jira kuwaas ma oo misku kala waay waa shabaab maantay maalin weyn waa maalin ummadda Soomaaliyeed ay barteen kuwa xildhibaanka sheeganayo ee amni darrada magaalada ka shaqeynaa waa mahadsantiin hay adaa mudan bal waaye